dagaal kani wuxuu ku dhamaan doonaa yahuud inaysan dhulka deganaanin lagana adkaado rabbi quraanka kariimka tabaaraka wa tacaala buu inoo sheegay suuratul israa bilowgeeda rabbi wuxuu sheegay tabaaraka wa tacaala aayadaha kaga hadlay waqadayna ila bani israa'iil reer bani israa'iil waxaan gaarsiinay oo u sheegnay buu rabbi tabaaraka wa tacaala kitaabkii lagu soo dejiyay waxaan u sheegnay tawreed aha inay dhulka laba goor fasaadin doonaan kor noqon doonaan wax burburin doonaan ظلمين دونان إلهي عاصين دونان الضوابط كو حد قد بدونان لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا لبدا قول دولك آد فسادين دونان أي فسادين دونان مد والببلان ربي باصارا مدي هوري بلنتي مركات سميسان بلنتي ربي وقت يدون تمادو بعثنا عليكم عبادا لنا وحان إذن كسو صاري دونابو ألا يري الضومو عيدمو خلقي غيغا كمدا ايان اذن كدير دونا بالله تبارك وتعالى markaasay idin qabsan doonaan oo idin burburin doonaan oo gurihiina ku dhex tamashleyn doonaan oo say doonaan idin ka yeeri doonaan oo idin duleyn doonaan arrinkaasina waa xugum aan xukumay oo socon doona بالله تبارك وتعالى aan waxba laga bedeli karin fasaadka hore ee ku kacdeen xagoormuu aha iyo ilaahay ku saliday مسألة قرآن كحدي معد ما هي مفسرين تاوح كشيء قال مين مركي للدليو رول كي لا يقبصدوا ولا بربريو ولا إهانيو ولا دليو إذا ماذا إلهي قدره الله يقول تبارك وتعالى ثم رددنا لكم الكرة دولة نمدي أودي بالدي سعر لينا بقالان إذن سنين إذا ما فربضني ضد قال ما ده ليس مركاسا وحال إذن سعر لينا يا أودي عدو جيني با إلهي إذن كسر فينا يا halka markaad joogtaan oo awood iyo dawladnimo kala la idin siiyo alla wuxuu yiri in ahsantum li anfusikum hadaad marka wanaag u dhaqantaana idinka idin taala idinka idin anfici wa in asatum hadaad xumaan ku kacdaana falaha naftiina ma iskale waad fahanteen Soomaa halkaas ay idin la mari doontaa meesha idin la martay bay mari doontaa kolba saad u dhaqantaan midii labaad fasaadintii labaad markay timaado ood mar kale awooda ilaahay idin siiyay khalad u isticmaashaan ood kibirtaan Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu markaana ciidan kala ilaahay idin ku soo diri doona iyo ummad kala idin ku salli doona ummadaasi wajiyadiina xumayn doonaan way idin duleyn doonaan waa masjidkii iyo dhulkii bay mari doonaan oo ku tamashleyn doonaan wax kasto gacantooda gashay burburin doonaan oo eber ka dhigi doonaan dhulkay mari doonaan markaasay idin baabi'in doonaan waa markii labaad oo isla weynaataan oo kibirtaan ayadana waxa la yiri inta markii la idin ku sameeyo asa rabbukum an yarhamakum ilahi inuu idin naxariisto mudan yahay oo cadowgii hadana idin ka qaado oo hadana waxooga awoodii iyo nafsi wax idin soo celiyo halka markay marayso dhageyso marka sunnada ilaahay ila qiyaamada socon doonto tan marka ilaahay u dhiga tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri wa in udtum udna haddaad ku noqotaan markastood ku noqotaan kibirka iyo isla weynanka iyo dulmiga annagana waxaan ku noqonaynaa inaan idin ciqaabno oo nu adooma kuwaya idin ku salido buu Allah tabaaraka wa tacaala markasta ila qiyaam saaca hadda Soomayna kibrin oo adduunki ma fasaadinin adduunka dagaalada ka socdaay dagaal ayna yahuudu sal ku lahayn waa yariya waana mid ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala quraanka ku sheegay ربي إنه شيء تبارك وتعالى إنيهين أهل إفساد يدقال هورين ربي تبارك وتعالى كلما أوقدوا حربا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله والله لا يحب المفسدين مركز الدب يهورين عالم كالدبك يدقال هذا كالسعودة كل لب يكلي ويكبرين مركز واسمها لي يا هي قلبيتك يا مريكان تاغيرادودي wax moodeen waxaad aragteen bay marayaan maxaan sugaynaa marka aadu ayagii waa ku noqdeen maxaan sugaynaa marka waxaan sugaynaa ballantii rabbi ahayd udna annaguna xuquuqadiina ku noqonaynaa laakiin goorma iyo biyadi man taasan sugaynaa sidoo kale fi suurati al-a'raf ربي وكأنه شيء تبارك وتعالى مركو كشيكي دقمر بني إسرائيل كمدا أو اللي يري مالنت السبت ده هذا بنينا ملايا
وإنتي حيالة دايستين ملايقي دبتي وربي كشيكي كدبنا قيب سمي وصدح قيبات وقيب سمي قيبتي اللي كري وايين الله تبارك وتعالى وداني الرأو بدلي هل كان مركي قصة علي لو كشيكي آخر كذا ربي وحيري وإذ تأذن ربك ربك وحو أغيسي وعد والبو أغيسينيا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب إنه كسو صاري دونو ربني إسرائيل إلى قيامة لغا قاريو مرول بعدة دنسيسة عذاب مدك أوحن عقوبة مدك أوحن عدة دنسيسة إنه مرول بإلهي كسو صاري دونو ربي أغيسين يا أدو مديس تا أقاد مرك ما أها وح صور دعي أورد ما ضيو تاريخ ذا قال معه لكن وإلى يوم القيامة إلى قيامة لغا قاريو نبينا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حديث صحيح مسلم كوي على النبي وحده صلى الله عليه وسلم مسلمين تو waxay la dagaalami doonaan yahuuda ilaa ay laayaan oo ka adkaadaan dagaal xun baa dhici doona markay ka adkaadaan baa yahuudigu intuu cararo wuxuu ku gaban doonaa geedaha iyo dhagaxaanta iyo buuraha hoostood gadaashooda ay ku gaban doonaan markaas waa ilaahay tabaaraka wa tacaala mucjizaadkay ka mid tahay geedkii iyo dhagaxii uu gadaal kaga gabaday baa hadlaya wuxuu leeyahay muslimow addoonkii ilaahayow yahuudi baa gadaashayda ku gabanaya kaalay dil ay ka dhaxeeyo muslimiintii reer Yurub xaggay Iiraan ka gashay xaggaysa Shiica ka gashay gaaladay garab u haayeen taariikhda in la akhriyaa loo baahan tan joogtiyo tii tagtayba anaga marka in la khaldo oo filin iyo riwaayad beena naloo dhigay oo makhduuciin noqonay wax saxsan ma aha أمريكا هدمته إسرائيل هدمته يا ورقاسي ما ورشرا كي مسكينها ماشان زو استاغا يا صوماليها ومخدوعه وحبل السعود مركاسوليه او يا قال الله دغالمون ايغا اهي يا كلو جيرو مسلم رق او ايغا اهي يا جيسيالون ايغا اهي عربت المريها واوين ميان نو شيغيس يا wax iska celiyoon iyaga ahay يا كريم عقليادينا علمييradeennu heerka markay gaadho alalaha qabri baa inoo dhaamayna dhulka korkiisa joogo safaahada inta leeg inaad garan weydo lucbada iyo ciyaartu say u dhacayso su'aal kaliya isweydii yaa Suuriya u dhiibay shiicada yaa u dhiibay yaa taariikhda akhri reer galbeedka u dhiibay reer galbeedka gacanta ka galiya calawiyiinta ama nusayriyada hadda ka talisa ahlu sunnaha baabiisay 250,000 oo sunni ah baa dhowr sano gudahood lagu dilay 7 milyan ka badan baa banaanka yaala oo qorraxda iyo barafku baabiinaya oo ahlu sunna ah magaalooyinkoodii dhulka lala simay wariyaa u dhiibay nusayriya calawiya dalka u dhiibay waxa u dhiibay reer galbeedka u dhiibay حزب الله يا لبنان يا أديبي أو كوهيا رجال بيتك أديبي العراق إن جم فوقين بردو بي أهيده يا جعنجليي أو جعنجليي شيعة سو مريكان كي يتحلفني يصير رجال بيتك ما هاي بردو بي يمن أو هذا وجودا بيصير حوثيين يا جرب سينا يا إيران يا رجال بيتك أو هوستك ليشيرا وحبيان عيارة اللجوء بدلي كل ذلك هل سؤال يسويديه ولقى ممق شيء هل نينو الشيعي أيا انت الله قاضي با قنتنامو لو خيره ممقش قنتنامو ولقى نين شيعي ما لقي هل أرور ربا كميدا الشيعة ما لقي ليس كأرقاقحيسادا ما حسوسا تا ما سقرانيسا حزب الله تهن لبنان كدقالما يا إسرائيل بولا دقالما يا لليه in lagu daro ururada argagixisada waxa ka dagaalamaya waa reer Yurub yaan lagu darin bay leeyihiin war ma lagu daro ilka abees hoos ka xiriirsan waa la soogeey anaga marka in la khaldo oo filin iyo riwaayad beena naloo dhigay oo makhduuciin noqonay wax saxsan ma ah ciyaarta inta ay leegtahay meeshay ka socoto waynu fahmaynaa hadaynu aqli iyo garaad iyo garasho leenahay ninkii aan lahayna wuxuu u baahan yahay wax badan inuu dib ugu noqdo taariikhda hadda dib u raacdan taariikhda muslimiinta dib u akhriyo kutubta taariikhda ma jiro gaalo dhul islaam qabsatay illa shiica garab u ahayd miisaalka ugu weyn waxa weey qarnigii 7aad markii Baghdad ay qabsadeen tataarku markay qabsadeen ninka soo galiyay oo hoos kala socday oo waday
nin raafidi oo la dhihi jiray ibn al-alqami buu ahaa ikhwaanu safa aaway siraaci ka dhaxeeya muslimiintii reer yurub xaggay Iiraan ka gashay xaggaysa shiica ka gashay gaaladay garab u haayeen taariikhda in la akhriyaa loo baahan tan joogtiyo tii tagtayba sidaas daraadeed habay yaraatee shiica gaala inaga celinayso raafida gaala la dagaalamaysa adeer warkaasi waa waraan jirin waa masraxiye iyo film la isu dhigayo waay maanta halistaas mawjado iyo dabaylo fitan ah oo noocyo iyo wajiye kala gedisan leh baa inugu socda waxaana ka mid ah kuwa ugu khatarsan ee waayahan dambe ina haya fikirka la yiraahdo shiicada raafidada 12 Iiraan ay ka dambaysay dawladda u tahay waxa aad looga naxaa oo wax laga xumaadaa in ummadda muslimka ah ee ahlu sunnaha ah intooda badan iyo cawaamtoodu aynan garanaynin bal khaasadooda in ka badan oo kamida aynan garanaynin shiica maxay tahay raafidada maxay tahay annaga iyaga maxaa noo dhaxeeya in badan oo kamida walil asaf inay u sacad garaacayaan oo taageersan yihiin ayagoon garanaynin waxay taageerayaan waxa uu yahay bimujarrad sha'aaraat iyo muuqaalo siyaasi ah inta kaliya inay ku taageeraan maanta khataraha ugu waaweyn ina haysta gaalada dhulalka muslimiinta ku soo duushaday gumaysanaysa khataraha ina saaran waxa kamid oo ka sahlanayn khatarta ka iimaanaysa raafidada iyo shiicada dhulalkii muslimiinta la wareegaysa oo kolba mid qabsanaysa oo shucuubtii sunnada kolba mid la wareegayso afkaarteeda kula wareegaysa iyo dhaqaalaheeda su'aal baan markaas weydiin karnaa in badan oo dadka kamid ah war shiicadan iyo raafidadani maxay ahayd annagi iyo ahlu sunnah hadaynuna iyo raafida meeshaynu kala joogniyo shiica kow horta mabda'a shiiciga waxa asaasay bilowgiisi nin yahuudiya oo la dhihi jiray Abdullah ibn Saba oo islaamnimada muujistay iska dhigay inuu islaamay shahaadateynka la yimid oo salaad tukaday kadibna intuu sida isku qariyay islaamka gudaha inuu ka dumiyo ku talagalay xilligii Uthman ibn Affan khilaafadiisa qaybteedii dambuu soo baxay dhul badan buu maray fikirkan uu faafiyay wuxuu gabaad ka dhigto ku gabaday aalu beydka hal jeclaado xaqoodiina hal raadiyo masaadirta iyo kutubta shiicada iyo kuwa sunnaduba waxay tilmaamayaan ninkii ugu horeeyay fikirkan la yimid inuu ahaa ninka yahuudiga ah ee munaafiqiye asalkiisuna reer Yamaneed buu ahaa waa koow horta fikirkan shiiciga ah asalkiisa yahuudi munaafiqa keenay qodobka labaad annaga iyo shiica meel la isuguma nimaadno waxaan ku kala tagaynaa quraanka kariimka ah haddaan ahlu sunnaha nahay waxaan rumaysanahay misxafka inoo yaale ee quraanka ah sidii ilaahay u soo dajiyay inuu yahay waxba ka dhimanayn waxna lagu siyaadinin inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun ilaahay inuu xifdiyay saxaabadii oo inay qoreen nabigu inuu qoray saxaabaduna jamciyeen oo isu geeyeen sidii loo qoray hal xaraf baa sheegay xaraka inaan laga bedelin shiica maxay rumaysan tahay waxay rumaysan tahay quraankan aynu haysanno waxba ka dhiman waxaan jirinna waa lagu daray on kamid ahay wax kamid ahana waa laga gooyay raggii saxaabadaana ku ciyaaray quraanka kariimka ah miyaan ku been abuuranayna maya kutubtooday ku taala مثلا سورة ألم نشرح وكي أن هذا يدين أخرنا سيادات كي قدرين وحا كمدا وجعلنا لك عليا صهرك وآيات بيدين لقتك سؤال بين سويدين كرنا وردد عن قرآن كيما كوكالة تاقني حقين سوقوا إيمانين سؤال سويدين لما كائمو مستر كلابات ان نولشنيه دينتن واحاديثته اسكو حديث منهن احاديثنا نبي محمد كسغن صلوات ربي وسلام عليه دحلكي سيئه
saxaabada laga wariyey a'immadu ka soo wariyeen oo ka soo gudbiyeen waa saxiixu lbukhaari waa saxiixu muslim waa sunan larbaca waa masaaniida waa muwaطa malik waa musnad shaafici waa kutub la yaqaano inoo taallo way ayib shiicadu xagga xadiidka kutubtaasi kutubtooda ma tahay maya waay kitaabkii ugu horreeyey xadiisi ah kutubtii ugu horreeyey waxaa ka mid oo agtooda bukhaari uga dhigma kitaab la yidhaahdo alkaafi ama usuulu lkaafi oo kulaynin la yidhahdaa iskale kaanada tilmaamayna axaadiistiina waa ku kala tagnay isku axaadiis mani ayib maxaa laaban marka diintan markay nebi maxamed ku soo degtay rag baa soo guuriyey oo ka soo qaaday hadday xadiis tahay iyo hadday qur-aan tahayba raggii waxyigan keenayna islama ogolin oo iskuma waafaqsanin sababtu shiicada raafidada itna cashariyada ah waxay rumaysan yihiin nebi maxamed ardadiisii iyo saxaabadiisii markuu dhintay kadib inay diinta ka baxeen oo ridoobeen tiro yar oo fara ku tirisa marka laga reebo sidaas daraaddeed asxaabu rasuulillaahi agtooda shiicada agteeda wax jira ma aha waxay ilaahay ugu dhowaanayaan caydooda wax ka sheegooda gaalnimo ku xukmintooda yay ka qaateen diinta waay asxaabu rasuulillahi sal alla alayh wasalam oo ilaahay qur-aanka ku ammaano oo ku taskiyeeyey oo rabbi tilmaamay inuu raalli ka noqday oo rabbi sheegay inay jannada loo ballanqaadiyo alla ridihiisa oo bannaanka yaalla ayayna nimankaasi haba yaraatee wax qiimo iyo qadarin u haynin bal ay necab yihiin oo caayaya waa midda keentay culimmada sunnada alimaamu maalik walimaamu shaafici walimaamu axmed inay yidhaahdaan nimankaasi gaalo wey saxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalamna waa ku kala tagnay iyo raggii soo naqliyey diintan soo naqliyey soo guuriyey waa ku kala tagsannahay waxaad intaa ku dartaa mabaadidooda waaweyn waxaa ka mid ah in laga beri noqdo abubakr sidiiq iyo cumar ibn khadaab iyo cuhmaan ibnu cafaan saddexdii khaliif ee nebi maxamed gadaashiisa ummadda ugu fadli badnaa saddexdaa haddaadan ka beri noqonin iyo khilaafadoodii iyo iyagaba shiiciba ma tihin raafidi ma tihin waxay rumaysan yihiin oo mabaadi'dooda ka mid ah 12 imaam ee iyagu ku abtirsadaan inay macsuumiin yihiin sida nebiyadoo kale oo uusan khalad ka dhicin halmaanna ka dhicin bal waxay rumaysan yihiin inay cilmiga alla qarsaday inay ogsoon yihiin wax kasta waa ka warhayaan looxul maxfuudkana waa daalacdaan siday wadaadada qaarkood dhihi jireen wax ka qarsoonna ma jiro macnaheedu waxay noqonaysaa ka laazimaya nebi maxamed haybka ma ogeyn wax ilaahay u sheegay mooye laakiin a'immadoodu wax walbay ka warhayaan ayadana kaafi usuul kaafi lilkulayni iyo kutubtooday ku taallaan xaqiiqada aan doonayo inaynu isla gaadhnaa waxay tahay innaga ahlu sunna iyo shiica meelna isuguma nimaadno meel aan isugu nimaadno ina midaysaay ma jirto waa ummad kale innaguna ummad baynu nahay jid baynu haynaa iyaguna jid bay hayaan mabaadi'da waaweyne asaasiguna inama kulmiso tu kalena inama kulmiso ma aha wax lagu been abuuranayo la iska leeyahay hadal xamaaso ku salaysan ma ahee waa hadal taariikhda iyo masaadirtoodii iyo kuwa sunnadu intuba ay ka markhaati kacayaan